Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii saddexaad ee buugga qisooyinka nebiyada. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Dhowaan waxaa bilaabaynaa buug qiso jacayl ah oo aan halkan joogto u soo gelin doono, waana buugga xiga. Maantana waxaa akhrin doona qisadii nebi Idriis iyo qisadii nebi Huud. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino, waxayna ku bilaabaynaysaa sidan qisada hore. nebi Idriis calayhi salaam waxa uu ka mid ahaa nebiyadii Ilaahay quraankiisa ku sheegay. Waxa uu Rabbi subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay in nebi Idriis uu ahaa nebi run badan. Waxa uu socon jiray arlada, dadka ayuu ugu yeeri jiray in ay Alle keliya caabudaan. Waxa uu dadka bari jiray culuum kala duwan sida wax qorista, waana qofkii ugu horreeyey ee qalin wax ku qora. Waxaa la sheegaa in uu ahaa qofkii bilaabay tolidda iyo samaynta dharka. Waxa uu ahaa mid tasbiix badan. Waxa uu dadka baray wax beerashada, dhismaha iyo injineeriyadda. Waxaa la sheegaa in uu dhisay magaalooyin badan. nebi Idriis eebe mar uu ka warramay waxa uu yidhi, ku sheeg kitaabka nebi Idriis wuxuu ahaa run badane nebi ah, waxaan u kor yeelay meel sare. Kuwaasi waa kuwa u nimceeyey eebe oo nebiyadii ah oo durriyaddii aadam ah, iyo kuwaan xambaaray la jirka nebi nuux iyo durriyaddii nebi ibraahim iyo israa'iil, yacquub, iyo kuwaan hanuuninay oon doorannay. Marka lagu akhriyo dushooda aayadaha eebbaha raxmaanka ah, way dhacaan iyaga oo sujuudi oo ooyi. Maxaynu ka barannaa qisadani? 1. Cibaadada Alle oo keliya ayay u sugnaatay. 2. Qofka muminka ah waa qof tasbiix badan. 3. Muminka waxa uu dadka la jeclaadaa wixii uu naftiisa la jeclaado. 4. Muminka waxa uu dadka baraa wixii waxtar u leh. 5. Qofka muminka ah wuxuu u adeegaa qoyskiisa iyo bulshadiisaba. Qisada labaadna waxay ku bilaabanaysaa sidan. nebi Huud. Kadib halaagii qabsaday qoomkii nebi nuux, waxaa dib u soo kobcay basharka. Tiradooda ayaa soo badatay, waxayna kala degeen goobo kala duwan. Qoomka reer Caad waxay degeen inta u dhaxaysa Cumaan iyo Yaman, dhulkaasi oo lagu magacaabi jiray Axqaaf. Waxay ku abtirsadaan Saam ibnu Nuux. Waxay ahaayeen dad dhaadheer oo xoog badan. Waxay dhisteen magaalo aan horay loo arag oo la dhihi jiray Iram. Waxay lahaayeen dhulbeereed ilo. Waxay aasaaseen magaalooyin iyo xadaarad. Nimcooyinkii Alle ku manaystay kuma shukrin. Waxay dib u caabudeen sanamyadii horay dad loogu halaagay. Waxay ahaayeen dad kibir iyo dulmi badan. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray walaalkooda Huud oo ka mid ahaa kuwooda ugu reer fiicnaa, guri ahaana ugu caansanaa. Wuxuu nebi Huud ugu yeeray dadkiisa inay caabudaan Allah oo keliya, wuxuuna faray inay iska daayaan caabudista sanamyada, wuxuuna ka reebay dulmiga iyo xadgudubka. Waxay yidhaahdeen, yaa naga xoog badan innaga. Waxay iloobeen in aabbihii abuuray uu iyaga ka xoog badan yahay. Waxay ku yidhaahdeen, Huudow, adigu waxaan ku aragnaa inaad tahay mid caqli yar oo doqon ah. Waxaan u filaynaa inaad ka mid tahay beenaalayaasha. nebi Huud wuxuu ku odhan jiray, qoomkaygiiyow, caqli yari ima haysato, ee waxaan u imid inaan Alle xaggiisa idinku yeero. Waxaan doonayaa inaan idin soo gaarsiiyo risaalada Rabbi. Waxaan ahay mid idin naseexeeya. Wuxuu nebi Huud gudagalay inuu xusuusiyo nimcooyinka uu Alle ku manaystay iyo inuu uga digo cadaabka Ilaahay iyo carradiisa iyo wixii ku dhacay qoomkii nebi nuux oo kale in iyaguna haleelo. nebi Huud wuxuu ku odhan jiray, qoomkaygiiyow, Alle dembidhaaf weydiista oo u towbad keena. Alle ayaa roob tiro badan idinka soo diraya samada, awooddiinna awood kale ayaa la idinku siyaadinayaa, ee ha jeesanina idinkoo mujrimiin ah. Waxay ku warceliyeen qoomkiisa, Huudow, wax caddaymo ah nooma keenin, innaguna ilaahyadeennii kama tegayno, adiguna kuma rumaynayno. Sidaas ayayna noqotay jawaabtii reer Caad. Waxay ku adkaysteen sanamyadooda, waxayna yidhaahdeen, wixii cadaab ah ee aad sheegayso soo daa, Huudow, haddii aad run sheegayso. Bilowgii cadaabka
muddo badan oo uu waday dacwada nebi huud waxaa rumeeyey tiro yar oo dadkii reer caad ka mid ahaa. dadka intoodii badnayd waxay ku madax adeygeen gaalnimadoodii. ilaahay wuxuu ku salliday roob la'aan iyo abaar daran, sidaas ay tahayna way madax adeygeen. qaar iyaga ka mid ahaa ayaa Rabbi baryey, waxaana la arkay 3 daruurood oo midi caddaan tahay, midna casaan tahay, midna madow tahay. markii la kala dooran siiyey 3dii saxaab waxay doorteen tii madowga ahayd, iyagoo u haysta in roob badani uu ku jiro. nebi huud ayaa loo waxyooday in daruurahani ay sidaan dabaylo wax halaaga, waa dabaylo dhawaaqooda iyo xooggooda aan loo adkaysan karin. dabaylahaasi wax roob ah lama socon, ee waa cadaabkii ay dalbanayeen reer caad. waxayna socotay 8 maalmood iyo 7 habeen. reer caad ayaa meeshii wada daatay. waxay noqdeen kuwo aan la arkin ilaa guryahooda mooye. allah wuxuu badbaadiyey nebi huud calayhi salaam iyo mu'miniintii la socotay. reer caad markii ay iska dhiga tireen hadalkii allah oo ay isbideen awood iyo xoog, isla markaana ay iloobeen nimcooyinkii faraha badnaa inay ku shukriyaan, macaasidoodana ay badatay, waxaa qabsaday dabaylo halaag ah. allah sud oo qisada reer huud nooga warramay waxa uu yidhi, reer caad waxay beeniyeen rusushii markuu ku yidhi walaalkood huud miyaydaan dhowrsanayn. anigu waxaan idin ahay rasuul aamin ah ee alle ka baqa oo adeeca, idinkamana warsanayo xaqa ujuuro ajirkayga eebbaha caakamkaan ka sugi. miyaad ka dhisaysaan meel sare oo dhan calaamad idinkoo ciyaaraya? ma waxaad samaysanaysaan dhismayaal waaweyn sida idinkoo waaraya. haddaad wax qabataanna ciqaabtaan una ciqaabtaan ay daran, eebbe ka cabsada oo adeeca. ka dhowrsada eebbaha idin siiyey waxaad ogtihiin wuxuu idin siiyey oo idinku xoojiyey xoolo iyo carruur, beero iyo ilo. waxaan idinka cabsanayaa maalin weyn. cadaabkeeda waxay dhaheen, waxaa isku kaaya mid ah haddaad na waaniso iyo haddii aadan na wacdinba. waxaad naga waaninayso waa dhaqanka ummadihii hore, annaguna nala cadaabi maayo. way beeniyeen, kolkaasaan halaagnay. taasina waxaa ku sugan aayad calaamad, mana aha kuwa rumeeya badankoodu. maxaynu ka baran karnaa qisadani? awood iyo xoog ciddii isbidda iskana ilowda allah inuu yahay abuuraha khalqiga waxay ku dambayn doonaan meel aan wanaagsanayn. in lagu shukriyo nimcada waxay siyaadinaysaa nimcada. qofku inuusan dalban cadaab iyo musiibo. ilaahay wuxuu ilaaliyaa addoommadiisa mu'miniinta ah, wuxuuna ka badbaadiyaa dhagarta gaalada. shirkiga waa sababta ugu weyn ee lagu halaagsamo if iyo aakhiro. waa mahadsantaha haddii aad halkan nala soo gaartay. fadlan muuqaalka like saar oo meel dheer gaarsii. mahadsanid.